السلام عليكم أصحابي وان السلام دمانتين kusoo dhawaada kanaalkeena waa kuma dilalku waa wax ka dhaca meel walba adduunka sidoo kale lana dhaca waqti walba amba mar walba manaha wax cusub ama cajiiba laakiin qisada maanta soo qaadan doona waa mid ka duwan qisooyinka dilalka ee caadiga ee ka dhaca dhammaan adduunka oo dhan waxayna ka mid tahay noocyada dil ee dhif iyo naadirka ah waana qisada gabadha lagu magacaabo Catherine Knight taasoo dishay ninkeedii manaysan dilin oo kaliya laakiin waxay jirkiisa ku samaysay arin aad u foolxun waxaanad ku ogaan doontaa muuqaalkeena maanta ee nala soco ilaa iyo dhamaadka muuqaalka ka hor intaynaan bilaabin muuqaalkeenan fadlan like saar videoga channelkana subscribe saar oo ku soo biir si aad la socoto muuqaalo kale oo sidan oo kale Catherine Knight waxay ku dhalatay magaalada Tenterville ee dalka Australia sanadii 1955 bilowgii nolosheeda Catherine waxay ku soo kortay nolol adkeyd waxayna la soo kortay walaalaheedoo badnaa iyo labadeeda waalid laakiin kuma soo korin nolol wanaagsan aabaheed wuxuu ahaa beelwadayste manuu dareyn jirin caruurtiisa wuxuuna aad u dili jiray hooyadood oo mar walba hortooda ayuu ku garaaci jiray sidoo kalena wuxuu dili jiray caruurtiisa manuusan dareyn jirin gabi ahaanba waxayna nolosha xun ku soo nooleed Catherine waqti fara badan waxayna nolosha xun ee ku jiraan qoyskan la noqotay mid caadi ah iyo waxay arkaan maalin walba sidoo kalena Catherine dhibaatadu kama hadhin ilaa iyo iskoolka waxayna ardayda kala kulmi jirtay xadgudubiyo iyo inay ku caadi jireen shakligeeda amba sida weeg tahay taasoo ugu dambeyntii ku kaliftay inay iskaga tagtay iskoolka oo ay ka shaqo bilowday warshad lagu sameyn jiray maryaha markii ay jirtay 15 sano kadib sanad ay shaqadaasi haysay waxay ka heshay shaqo kale meel lagu jarjari jiray hilibka sidoo kalena lagu iibin jiray shaqadaas oo ay ku tilmaamtay shaqadeedii riyada oo ay ku riyoon jirtay ilaa iyo yaraanteedii waana shaqadii uu ka shaqayn jiray aabaheed isla shaqadaas waxay ku baratay saaxiibkeedii ugu horeeyay magaciisuna ahaa David wuxuu sidoo kale ahaa beelwadayste sida aabaheed laakiin taasi kamay hor istaagin inay xiriir sameeyaan Catherine waxay samaystaan xiriir ugu dambeynna way isguursadeen laakiin iskulamay nolol wanaagsan oo wacan taacagsigeeda waxay ku noolaayeen nolol adag mar walbana way dagaalami jireen ismanina fahmi jirin gabi ahaanba Catherine waxay ahayd mid mar walba ku xadgudubta ninkeeda David waxayna ku dhufan jirtay wax mar walba Davidna wuu iska dulqaadan jiray 2 sano kadib guurkoodii Catherine waxay dhashay ilmahoodii ugu horeeyay oo ahaa gabadh habeenada ka mid ah wuxuu David ku soo dahay asxaabtiisa wuxuuna imid guriga xilli dambe markuu guriga yimid wuxuu arkay Catherine gubeysa marihiisa dhamaan iyo kabihiisa waxayna u soo dhaaqday dhinaciisa iyadoo ka jartay birweyn madaxa intaa kadib David wuxuu u baqay noloshiisa wuxuuna ka cararay gurigiisa isagoo tagay guriga jaarka halkaana ka wacay booliskii markay booliskii imaadeen guriga waxa la geeyay isbitaal David waxaana loo sheegay inuu dhaawac ka soo gaaray lafta madaxa sidoo kalena Catherine waa la xiray laakiin waa la iska sii daayay kadib markii ay raaligelin buuxda ka bixisay ficilkii ay samaysay laakiin David wuu iskaga tagay guriga markuu u dulqaadan kari waayay dhaqanadeeda mar kale Catherine waxay samaysay arin naxdin lahaa waxayna qaaday gabadheedii yareyd ee jirtay 2 bilood ee ay dhashay waxayna geysay wadada tareenka si uu jiro tareenku wayna ka tagtay laakiin nasiib wanaag intaanu soo marin tareenku nin ayaa ka badbaadiyay ilmihii yaraa sidoo kalena waxaa la soo qabtay Catherine waana la xiray waxaana la geeyay markan dhakhtarka si loo ogaado xaaladeeda caafimaad waxaana la ogaaday inuu hayo depression amba isku buuq waqti yar oo ay xidhnayd kadib waa la iska sii daayay ilmaheedina waa loo soo caliyay waxayna dhowr jeer isku dayday inay soo caliso David laakiin David uu ka diiday waxayna si sax ah David u kala tageen sanadii 1984 markaas oo ay kala tageen waqti yar kadib Catherine waxay isbartay nin kale oo ahaa magaciisu John Charles John wuxuu ahaa macdan qode wuxuuna haystay lacag ku filan bilowga xiriirka John iyo Catherine wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan Catherine waxay iska dhigaysay qof wanaagsan oo dun iyo xariira iyadoo iskaga dhigaysay ninkan si uu u guursado sidoo kalena John wuxuu dhalay carruur hore ka hor inta ayna xiriir sameyn Catherine oo wuxuu qabay gabadh hore waxayna dadkii yaqaaneen ninkan ku tilmaameen nin wanaagsan xitaa gabadhii hore ee uu qabay markii ay bilaabeen xiriirka Catherine si wanaagsan ayay ula dhaqmaysay bilowgii wayna isfahmayeen aad ay isugu dhawaayeen John laakiin wanaagaasi muu noqon mid si waara
waxaana u bilaabmay dhibkii dagaalkii sanadii 1998 Catherine iyo John waxa soo dhaxgalay muran kadib markii uu diiday inuu guursado oo saaxiibtinimo ay ku wada joogeen laakiin arinkaasi Catherine muu farxad gelin aad ayayna uga carootay arinka waxayna damacday inay ka argoosatay ninkeeda ama saaxiibkeed gabadhan waxay samaysay ficilo xunxun oo muddo hore ka daran yahay waxayna samaysay markan inay video u dirto booska shaqada ee John qalab uu John ka soo xaday shirkadiisa markii uu booska arkay aad ayuu uga carooday wuxuuna John isku dayay inuu ka dhaadhiciyo inaanu xadin qalabkan ee uu ku qabsanaya howlgaara waqti kadibna wuu soo calinayay laakiin waxba kama dhageysan booskii wuxuuna ka ariyay shaqadii inta kadib John wuxuu noqday bilaa shaqo aad ayuu naga carooday arinka sidoo kale waxay isku xanaaqeen Catherine wuxuuna ka ariyay guriga laakiin muddo uu ahaa bilaa shaqo wuxuu shaqo ka helay shirkad kale bilayar kadibna Catherine way isku soo noqdeen mar labaad layab laakiin xaalku wuxuu ahaa sidii hore oo dagaalka iyo fawdadu way sii socdeen 29 bishii labaad sanadii 2000 habeen Salasa John wuxuu ku soo noqday gurigiisa wuxuuna sugayay Catherine iyo caruurtiisa oo ka maqnaa guriga habeenka waxaana ku soo laabtay Catherine oo kaliya markii uu weydiiyay caruurtiisa waxay u sheegtay caruurtu inay la seexan doonaan saaxiibadeed inta kadib John uu iska seexday wuxuuna ka soo qaaday arin caadi ah kadib maalinka xigay waxay jaarkii John arkeen gaarigii John oo yaala guriga taa micnaheeduna tahay inaanu John aadin maanta shaqadii jaarku way ogaayeen xaaladda qoyskan iyo dhibaatada ka dhex jirta gudaha qoyskan sida darteedna aad ayay uga shakisanaayeen sidoo kalena waxay ogaayeen xaaladda Catherine iyo inay tahay gabadh badan sidoo kale maamulihii shaqada ee John wuxuu ogaa xaalka sida darteed wuxuu u soo diray shaqaale si uu u soo hubiyo xaaladda John kadib markii uu iiman waayay shaqada maalinka markii ay shaqaalihii tageen guriga waxay gargaraaceen albaabka waxayna arkeen dhiig ka soo dareeray albaabka hoostiisa waxayna isla markiiba garaaceen booliska markay booliski tageen meesha waxay galeen guriga waxayna arkeen dhiig daadsan dhammaan guriga iyo John oo jirkiisa loo jarjaray sida hilibka xoolaha oo ku daadsan guriga inta kadib booliski waxay baadi goobeen Catherine waxayna ka heleen Catherine guriga iyadoo suuxsan kadib markii ay isticmaashay dawaxda dhaafa markan wax walba way cadaayeen kadib markii ay Catherine dishay ninkeeda waxa uu jarjartay jirkiisa si qayb kamid ahna waxay ku karsay cunto si ay u siiso caruurtiisa in kamid ahna iyada ayaaba cunto ku dhex darsatay kadibna cuntay isla markiiba gabadhan waxay qiratay dambigeeda maxkamadeynta gabadhan waxay bilaabantay 15 bishii tobnaad sanadii 2001 waxaana 8 bishii 11 sanadii 2001 lagu xukumay xabsi daayin aan sii days lahayn waxayna noqotay gabadhii ugu horeysay ee waddanka Australia lagu xukumay xabsi daayin kadib markii ay qiratay dilkii ay geysatay iyo inay ninkeeda u jarjartay sida hilibka xoolaha oo ay qayb kamid ahna cuntay waxayna bulshada halkaas u arkeen dilkii ugu xumaa ee soo maray waddankooda ilaa maanta ahna waxay Catherine ku jirtaa xabsiyada dalka Australia meel jiro qof soo booqda ilaa faamilkeeda maxkamadeynteedii kadib waxay sheegtay in nolosheeda hore in ay ku soo gortay nolol ciriiri ah imikana aanay doonayn inay ku sii noolaato nolol ciriiri ah waxayna sheegtay in la soo dhaawacay waxayna arinka ku cabirtay kelmad ay tiri kadib markii la xukumay oo ahayd kuwa dhiban waxay dhaawacaan kuwa kale halkaas ayayna ku dhamaatay qisada gabadhii ninkeeda cuntay amba qisada Catherine Knight daawada su'aal bal ma isleedahay in nolosheedii adkayd ee ay ku soo kortay iyo aabaheedii balwada lahaa ay saameyn ku yeesheen kana dhigeen inay noqoto dilaa mise fikir kale ayaad qabtaa fadlan commentiga hoose igula wadaag wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu